Barnaamijka dhacay NNTV ee magaaladiisa yahay xarunta Hargeysa ayaa waxaa soo bandhigay muuqaal la yaab leh. Muuqaalkaas oo ahaa gabar yar oo indhaha beeshay kadib markii indhaha wax yar oo xanuun ilmeeyeen. Hooyadeed ayaa sheegaysa wax yar oo indhaha ayaa ilmeeyeen. Kadib ayay waxay tiri waxaan u geeyay dhakhtar. Dhakhtarkii ayaa daawo siiyay. Daawadii markii ay qaadatay isla habeenkii ayaa indhaha qarxeen. Markaan ku soo laabtay oo dhakhtarkii aan u imaaday aan u sheegay dhahay gabadhii yar indhaheeda way ka sii dareen. Wuxuu igu dhahay warqadihii ayuu iga qaaday. Kabacdina wuxuu ugu yiri sorry aniga ma u maleynayn in sida tan oo dhacayso. Waxaan isdhahay wax daaweey maan is oranaynin wax xali. Laakiin tani way dhacday indhaheedana way qarxeen waxba lagama qaban karo. Kabacdi gabadhii hooyadeed ayaa waxay tiri ayadoo ilmeynayso oo barnaamijka dhan qabsatay dadkii joogeen wada qiiro galeen oo yaabeen ayaa waxay ku tiri aniga gabadhaydi waa agoon. Waxaan ka oraday maalin maalmaha kamid maalin alle kala xoog badneen maalin alle kala awood badneen ayaa jiri doonto maalintii yawmal qiyaamo adiga ayay ku taalaa ilaahay ayaan kugu daayay ayay ku tiri. Dadkii meesha fadhiyeen oo bulshada ahaayeen oo barnaamijka ka hadlayeen ayaa aad ugu qiiroodeen hadalka ay tiri maamadaasi. Hase ahaatee gabadha yar ee agoonta oo hadda ubax soo baxayso indhaha beeshay ayaa arrin mucjiso ah. Hase ahaatee waxaa ka sii daranbo inuu isla hadda dhakhtarkii weli sii shaqaynayo oo shaqadiisa sii wato oo dhakhtar yahay oo dadka sii daaweynayo bulshada u daaweynayo oo weli dhakhtar u yahay. Adiga like saar muuqaalka si dad badan u arkaan. Laakiin waxay naga caawinaysaa dad badan inay gaaro muuqaalka sida oo dad badan u arkaan arrintan ugu taxadiraan. Dhaqaatiirta la tagay kulligood inay wada dhaqaatiir ahaayeen kuwaan iyo kuwa ka sii daran ka buuxaan daawooyin dhaca dadka gadaan. Arrintan ayaa khatar ku ah bulshada Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga taxadiro. Dhaqaatiirta loo tagayo daawooyinka la isticmaalayo dheedkooda waqtiyadooda in la bedelo. Hase ahaatee tani ma ahan hadda ka hor ayaa aniga waxa la kulmay daawo la gadayo daawadaas oo dheedka laga bedelayo oo la leeyahay waa la sii gadayaa. Inta caafimaad raadinaysa haraagsan cudur iska taxadir. Haddana ahaatee waxaa loo baahan yahay ninka falkan geystay gabadha yar masaakiinta agoonta indhaha tiray in uu sii shaqeysto ma ahan waa in meeshiisa ganacsigiisa kaloos lagu xiraa.